deeqdan oo ka kooban biyo raashinka noocyadiisa kala duwan iyo dawo ayaa laga qaybiyay deegaano hoostaga degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana ka faa'iideystay in ka badan 150 qoys oo kamid ah dadka reer guuraaga ah ee abaaruhu saameeyeen waxaa deeqdan ay bixinaysay ururka Alpha Trust wakiilka ahaa Najiib Cabdiwali Cabdixiis waxaana qaybinta deeqdan kala qayb qaatay gudida gurmadka abaaraha ee gobolka Sool waxaa xusid mudan in geestooda ururka Alpha Trust uu deegaanada uu deeqdan ka bixinayay gaarsiiyay dhakhaatiir kuwaas oo adeegyo caafimaad u fidinayay dadka ay abaaruhu saameeyeen xilli xaaladda caafimaad ee deegaanadaas laga soo darinayay xaaji kawle oo ka mid ah gudida gurmadka abaaraha gobolka Sool ayaa ka mahadnaqay deeqdan Alpha Trust ay soo gaarsiisay dadka jilicsan ee abaaruhu saameeyeen ururka la yiraahdo Alpha Trust oo ugu talagalay dadka tabaalaysan ee abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee saameeyeen halkaas oo ay ku soo wareejiyeen gudida abaaraha gobolka Sool iyaguna sii gaarsiinaya iyagoo hay'adii ururka wada socda ay sii gaarsiinayaan meelihi ay ugu talagaleen way ku mahadsan yihiin waxa kale oo garab socda team dhakhaatiira oo shalayna kormeer ku soo sameeyay goobaha hadeer ay u baxayaan biyaha iyo raashinku maantana uu wada wixii ay u soo qorsheeyeen oo gaarsiinaya oo u geynaya Najiib Cabdiwali Cabdixiis oo ka mid ah hawlwadeenada ururka Alpha Trust ayaa ka warbixiyay kaalmadan ay soo gaarsiiyeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolka Sool waxaana ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in la soo gargaaro dadka reer guuraaga ah ee ay abaaruhu xaalufiyeen mahad celinaya mas'uuliyiinta iyo madaxda ururka Alpha Trust oo aan xubin ka nahay aniga marwadeyda oo deeqdan iyo deeqo fara badan oo aan wakiil uga nahayba aanu gaarsiino doono gobolada dalka kala gedsan intii gacanteedu ay gaadho gudoomiyaha ururka Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye iyo agaasimaha guud Cabsalaan Muumin iyo dhammaan xubnaha kala gedisan ee ururkaasi waa urur u bohoobay in ay dadka dhibaatada la qaybsadaan oo duruufta adeega dalka ka jirta ay dareemaan iyagoo dalka aan joogin haddana bal dadkoodii gudaha ku sugnaa ay dhibaatada adeega dalka ka jirta ay la dareemaan taasina waxay muujinaysaa isku damqashada iyo diirnaxa ku jira iyo deeqaha ay bixiyeen tan oo kaliya maaha laakiin deegaankan gobolka Sool waa deeqdii ugu horeysay ee haddaanu nahay ururka Alpha Trust aan u nimaadno inaanu ka bixino intaan gobolka joogno waxaan tagi doonaa ugu yaraan 5 deegaan oo kale oo deegaankan uu lambar 6 ku noqon doono deegaanada kale shanta aan tagi doonaa iyagana sidoo kale in gacanteedu gaadho caafimaad iyo biyo iyo dawo waan rajaynaynaa iyo cuntaba geestooda qaar ka mid ah dadka kaalmadan gaadhay ee ku dhaqan deegaanada Gobdheero Ceeljeex dhagax isku raw iyo Gubadle ayaa ka mahadnaqay raashinkan la soo gaarsiiyay kaas oo ka koobnaa bariis bur sonkor timir saliid biyo iyo adeegyo caafimaad oo ay fulinayeen dhakhaatiir ururkaasi ugu talagalay inay adeegyo caafimaad ka fuliyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen kuwaas oo ka socday isbitaalka Manhal ee magaalada Laascaanood wiilashayada dhalinyarada kuwa noo keenay dhakhtarka kuwa biyaha noo keenay kuwa baadkana soo gaarsiiyay dharaarta maanta ah ilaa iyo saaka intii waa bariyay nala joogay iyagana Ilaahay ha ku guuleeyo garabkooda waa u ducaynaynaa dhalinyaradii daawada ii keentay ayaan u mahad celinayaa daawo raashin biyo waa naloo keenay waa u mahad celinaynaa Alpha Trust oo ka mid ah ururada u gargaara dadka jilicsan ayaa haatan ku hawlan sidii uu kaalmooyin kala duwan u gaarsiin lahaa dadka ay saameysay abaartu ee ku dhan gobolka Sool deegaanadiisa kala duwan Maxamed Ismaan Cabdinuur Universal TV Laascaanood